runtii ma jecli in muxuu ahaaye muwaadinka reer Somaliland ee hadda halkan jooga ee hantida badan ku leh wixii samaroon la geliyo aan kala saarana muranka isaga iyo dawladda Djibouti u dhaxeeya iyo banka BCI Djibouti waa dal u deganaa waa dal muwaadin ka ahaa ama ka yahay banka BCI na qaybtiisa Djibouti iyo tiisa muxuu ahaa xafiiskeyga xafiis madaxeeyga ku yaalanay muxuu ahaa Paris labaduba qoraal bay soo gudbiyeen qoraalka deyn bay ku sheeganayaan deentay ku sheeganayaan iyagu xukuumay xagga ku soo ridiyay haday Paris tahay iyo haddii ay Djibouti xafiiskooda tahayba way dacweeyeen waxa ay soo rideen xukun halkan haddii ay la yimaadeen dawladda Somaliland xukuumadoodii waxay tiri halkan ma khuseeyaan waa muwaadin reer Somaliland ah maxkamad halkan ka dhacda oo xukun kaga ritun baa anagana khuseeya nimanka waxaan ku nidhi haddaad doonaysaan oo adduun u haysataan iska ilooba waxa kale oo halkan maxkamad ka furta lawyerkiina ka qabsada wixii idinka soo baxaa leeyihiin boroseskoogii bay mareen oo waa la iska arkay haday xukuumadda tahay dee ay Axmed Cusmaan tahayba arrintaa isaguna inuu iska difaaco lawyerkiisa qabsado waxaad moodaa in muran dheer la gelinayo arrintii la jahawareerinayo la siyaasadaynayo oo la reeraynayo hantida Axmed Cusmaan ma istaahisho in la reereeyo ama la siyaasadayo laakiin garnaqsi iyo muxuu ahaa dacwad lagu kala helo wax ayay ku habboontahay ma jecelin hantidu hadday siyaasad gasho way xumaataa muran siyaasadeed marka la geliyo hantidayda anu aan leeyahay dee inay muran siyaasadeed iga gashay ma jiro laakiin haddii wax laygu haysta inaan dacwoodo ama lay dacweeyo ayaa meesha taala maanta siyaasiyiintii baa ka hadlay dhaqankii baa ka hadlay waa lala kala baalbeela waxaan odhan lahaa markaa siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka iyo dadweynaha ciddii ka hadlaysaa Axmed iyo hantidiisa heshidayso Axmed waa nin wax garada waa nin dariiqa uu marayo hantidiisa ku hananayo garanayo haddiiba ay nimankii la yimaadeen xukunno oo la yidhi xukunnadani halkan ma khuseeyaan halkan Somaliland baa laga ninkii doonayo wax ku haysto ama kulaho halkaa ka furo maxkamaddaa ka furo muxuu ahaa faylkaaga geyso qoraaladaada iyo waxaad seerta geyso lawyerkaaga u diro dacwadaada ka furo haddii la yidhaahdo waxa ceeboo ku jiraa ma jiraan baan u maraynaya hadalkuna halkaa gaari maayo cabdilqaadir wuxuu yidhi cid bay is haystaan dawladdu inay dhex gasho maaha dawladdu Djibouti ka wakiil maaha bay yidhahay arrinta Djibouti anagu maanaan gelinay Axmed muwaadin buu ku haaya haddii uu halkaa wax ka yaalaana murankeeda ama cid uga baahan yahana wixii lagala qabana waa lagala qaban laakiin arrinta cid socoto oo leh war cid baanu wax ku leenahay xukuumadda Somaliland kuma lihid odhan kari mayso dacwad ha furanna odhan kari mayso inay tilmaantay ugu mooyaane waxay la tahay taa intaas inay naga filan tahay war meesha cudur kuma jirayaan cudur laga deeyo
hantida muwaadinkan ayaan lagu khamaar yaan hostage laga dhigan nin waxaa mooyaane inuu suldaan cumar haabaan malaynaya wuxuu ku jiraa buu xabsi guri yaa ku biday xabsi guri goormuu galay xabsi guri ninka la yidhaahdo muxuu ahaa axmed cusmaan somaliland baa xidhaysa uu kaga jiraa ilaa kan innagaa xukunay cidduu kaga jira halka ma ciidankii naatay lagu soo duulayo qabsanaya oo innagaa ka difaacaya oo qoys baa ka difaacaya waxaa laga daayo hantida muwaadinka maalqabeenka hawshiisa laga daayo hadday ciidi ku soo ka soo dacwootay wuxuu sheeganayso wadadeeda haloo anu ku sii dheeranmaya tajabuuti yaa hinteeda tajabuuti wax sheegasho haddii ay jirto arrintaasoo wadada wax igala qabtana wuu odhan karaa deelalada maaye qofku inuu isbaraxaa loo baahan yahay waanu tegi karaa hadduu baqa ka qabana waa loogu hiin karaa horeba waa loo tegay jabuuti rag baa loogu diray waa weyn qarankan dhexiraan ka soo hayay iminkana qaar ka hayaa way hayaan wixii la soo yiri way hayaan taa ku dheeraan maayo waxay la tahay ubadkeena iyo aragnimada ubadkan 24 saaco lagu dulmar maayo ee lagu dul hajabaayo aynu doonayno inaynu wax u dhisno aan ka dayno baraar walba culimada ka taagan oo caytanaysa aan ka dayno ubadkeena waa kuwa mustaqbalka daabaynu nahay cid baynu doonaynaa inaynu wax u dhisno waxay naga mudan yihiin inaynu haddaynu hadlaynana hagaagsan ku wada hadalo oo gaalka marno inaynu barro inta u xun hadal iyo inta u xun muxuu ahaaye af soomaali inaynu adeegsano alaynooga wanaagsan yahay ubadkeenna aan ugu biilino inaynu qaran dad qaba u dhisno dhaxal wanaagsan oo hadday tahay odhaahiyo arrin baa dhaxal wanaagsan inaynu uga tagnaa laynooga baahan aad iyo aad baan uga xumahay marka aan wax garabkeennii cumaamada lahaa maxay yeeli doonaa waxaa la yidhi hasha muxuu ahaa geela duqdiisa durdurisay aarankiisana muxuu cadu malay dhaqankeennii aqoonteennii siyaasigeenni markaynu qaabkaa u wada hadalno maxaynu ka filaynaa kuwa yaryar maxay cid iskaga celin doonaa maxay ku wada joogi doonaa maxay ku dhaqmi doonaa waxaan leeyahay anu tubno ubadkeenna anu tubno qarankeenna aan u tubno ciideenna iyo halgankeenna anu tubno